kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka Hubaal News qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah wasiiradii garabka uu ahaa Axmed Madoobe oo geeriyooday isla qabsi xoogan waxa uu wali ka dhex taagan yahay magacaabista wasiirada cusub xoogana waxa ay ka soo baxayaan shakhsiyaadka sida weyn la iskugu hayo halka kooxda al-shabaabna ay gudaha u galeen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfurka Soomaaliya qodobadaasna waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubaal News fadlan ku soo biir janalkan oo qayb ka noqo saaxiibada ku soo xirmaya ee halkan ka helo wararka joogtada aan ku baahino aragtidaada daawadaha naga hilmaamin muuqaalkan oo si share garay asxaabtaada laagtaadana waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaado qodobada maqasheen oo faahfaahsan wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland General Maxamed Warsame Faarax Darwiish ayaa ku geeriyooday dalka Jarmalka halkaas oo uu joogay arrimo caafimaad geerida wasiirka ayaa lagu xaqiijiyay war ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi oo lagu daabacay baraha bulshada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaana ka tacsiyay geerida ku timid wasiirka isagoona tilmaamay in marxuumku uu si weyn ugu suntan yahay qalbiyada bulshada Jubbaland oo qayb weyn ka ahaa dadaaladii dhismaha dowladda Jubbaland sidoo kale Axmed Madoobe ayaa sheegay in wasiirka geeriyooday uu door muhiim ah ka soo qaatay dhismihii hay'adaha kala duwan ee dowladda oo uu door muhiim ah ku lahaa dhanka kalena wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyay geerida ku timid wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubbaland General Maxamed Warsame Darwiish war-saxaafadeedkan sida gaarka kaga soo baxay xafiiska Axmed Madoobe ayaa lagu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa tacsiyo u diray dhammaan ehelkii qaraabadii saaxiibadii shacabka Jubbaland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ee ku timid Allah u naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta marxuum General Maxamed Warsame Darwiish oo ku geeriyooday dalka Jarmalka oo waqtiyadii la soo dhaafay uu arrimo caafimaad u joogay madaxweynaha ayaana tilmaamay in marxuumku uu si weyn ugu suntan yahay qalbiyada bulshada Jubbaland oo qayb weyn ka ahaa dadaaladii dhismaha Jubbaland iyo sidoo kale wasaaradihii uu ka soo shaqeeyay ee dhismihiisa hay'adaha kala duwan ee dowladda oo door muhiim ah ku lahaa waxa madaxweynaha uu intaas ku daray in marxuumku uu hadda gacanta ku hayay dadaalo baaxad leh oo lagu daadejinayo maamulka gaar ahaan dhismaha golayaasha deegaanka oo wasaaradiisu ay hormud u ahayd warkan ka soo baxay xafiiska Axmed Madoobe ayaa lagu yiri ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa alla uga baryay marxuumka inuu ka waraabiyo Jannatul Firdaws isagoo samir iyo iimaan u rajeeyay dhammaan shacabka Jubbaland ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay marxuumka dhinaca kale tacsida marxuum Maxamed Warsame Faarax Darwiish ayaa si taris mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda ayaana dhankooda tacsidireen halka madaxda dowlad goboleedyada uu kamid yahay Saciid Cabdullaahi Danina ay ka tacsiyeen geerida ku timid wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubbaland geesta kalena xooga cusub waxa laga helaya khilaaf xoogan oo ka taagan magacaabista golaha wasiirada gaar ahaan xubnaha sida gaarka uu khilaafka uga dhex taagan yahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa wali ku hoolan dhameystirka liiska golaha wasiirada xukuumaddiisa cusub oo muddo 10 maalmood oo dheeraad ah uu siiyay baarlamaanka maalmihii ugu dambeeyay ayuu Ra'iisul Wasaaruhu kulamo isdaba joog ah la yeelanayay qeybaha bulshada isagoona kala hadlayay dhismaha xukuumadda waxaase la ogyahay in kulamadaas aan lagu soo hadal qaadin awood qaybsiga iyo xulista wasiirada oo shirarka muhiimka ah ay dhacaan habeennimadii ayna u dhaxeeyaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka xogta aanu helnay ayaana sheegaysa in xilalka la isku hayo ay ugu horeeyaan laba jago wasiir oo ay kala leeyihiin jufooyin ka soo kala jeeda beelaha ay matalaan gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Cabdullaahi Timcade xilka wasiirka ee beelaha uu matalo Sheekh Aadan Madoobe waxa ku haysta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxayna kala wataan laba shakhsi arintan oo wali laga heshiinin isla markaasna keentay in Sheekh Aadan Madoobe culeys ku noqdo rabitaanka Xasan Sheekh xilka wasiir ee beesh uu ka soo jeedo Cabdullaahi Timcade ayaan isna la isku hayaa ciida la siinayo waxaana laba shakhsi oo kala duwan kala wato ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka xog aanu helnay ayaana sheegaysa in Timcade ay gadaal ka riixayaan shakhsiyaad diidan qofka uu ra'iisul wasaare Xamza u arko midka ugu munaasabsan ee la siin karo kursigaasi
aqalka sare aad muhiim uguma ahan xukuumadda maadaama uusan ansixin iyo ridid midna samayn karin. taasi waxaa yareynaysaa awoodda Timcad waxaana sahlan in rabitaankiisa meel la iska dhigo. marka laga soo tago labadan xil ee wasaaradeed ee khilaafka ugu weyn uu ka jiro, waxaa kaloo jira xilal ka badan 10 wasiir iyo wasiiro ku-xigeenno oo aan go'aan kama dambaysa laga gaarin qofkii kusoo bixi lahaa oo 2 ilaa 3 qof u sharaxan yihiin, kuwaas oo go'aanka gaaristooda aysan adkeen. ugu dambeyntii waxaa la filayaa in golaha wasiirada cusub lagu dhawaaqo maalmaha soo socda iyadoo 10 beri ee ra'iisul wasaare Xamzana loo kordhiyay muddada magacaabista ay ku eg tahay 5 bisha Agoosto. waa hagaagay daawadayaal, iminkana waxaanu eegaynaa xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa gudaha u galeen magaalada Baydhabo. wararka laga helayo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka maamulkaas ay howlgallo culus ka bilaabeen Baydhabo kadib markii xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerar ka bilaabeen gudaha magaalada Baydhabo. saraakiisha ammaanka ayaa shaaciyeen inay heleen xog sheegaysa in magaalada Baydhabo ay soo galeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo doonayaan inay weerar ka geystaan magaaladaasi. sidoo kale saraakiishu ayaa xuseen inay bilaabeen baaritaano iyo dabagal ay ku hayaan xubnaha Al-Shabaab si looga hortago falalka amni daro oo ay ka geysanayaan halkaas. ciidamada howlgallada wada ayaa baaraya gaadiidka iyo dadweynaha. waxay sidoo kale baaritaan ka wadaan baraha kontarool ee laga soo galo magaalada Baydhabo. dhaqdhaqaaqyadan cusub ayaa ku soo aadaya xilli salaadii Jimcaha kadib qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada gudaheeda kaasoo lagu dilay wasiirkii cadaaladda Koonfur Galbeed iyo wiil uu dhalay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ku dhow 10 kale oo qofood. weerarkan waxaa sidoo kale ka horeeyay qarax kale oo ka dhacay magaalo xeebeedka Marka kaas oo lagu dilay gudoomiyay degmadaas Cabdullaahi Cali Waafow iyo dad kale. Al-Shabaab ayaa kordhiyeen weerarada qaraxyada iyo dilalka u badan oo ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. sababaha ugu waaweyn ayayna khubarada dhanka amniga ku tilmaamayaan inay tahay mid ay iskaga mashquulinayaan dowladda Soomaaliya maadaama haatan xoogoodu ay iskugu geeyeen dagaalka foolka-foola oo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwa liyu booliska iyo ciidamada dowladda Itoobiya ay kula galooyeen qaybo ka mid ah xadka dheer ee wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. maadaama Al-Shabaab halkaa dagaal toos ay ka wadaan, waxaa la tilmaamay in haatan ay dhanka gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ay u weeciyeen ka fulista weerarada qaraxyada u badan oo ay sheegeen inay tahay mid ay ku muujinayaan sii joogitaankooda qaybo ka mid ah gudaha dalka. ma jirto dadaalo badan oo ay wado dowladda oo ku aadan howlgalla ka dhana kooxdaasi maadaama haatan xoogoodu uu jiro dhanka xuduudda. waxaana sidoo kale dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh ay ka dhawaajisay inay Al-Shabaab soo afjari doonto isla markaasna dagaal dhinac waliba ay la geli doonto, balse dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa weli ku mashquulsan soo xulista golaha wasiirada cusub. arrimahaas ayaana loo sababeynayaa inay tahay mid haatan ka mashquulinaysa inay Al-Shabaab dagaal toos ay kaga furaan qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka xilli xoogoodu uu jiro dhanka xuduudda ee wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. si kastaba Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad amni tii ugu darneed, waxaana madaxweyne Lafta Gareen uu kulan iskugu yeeray saraakiisha maamulkaas maadaama ay soo kordheen qaraxyada waaweyn ee lagu dilay mas'uuliyiin sarsaro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanaageentaa warki oo aad kala socoteen Hubaal News, fadlan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada nagu xiran aragtidiina qaybta hoose nagu reeba muuqaalkan la sii wadaaga saacadtiina laagtiina waynu dhiirigelin waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka Hubaal News.